halkan saxaafadan yar ama kaliibkan yar aan uga jawaabaynaa nin maanta ka hadlay saxaafadda oo la yiraahdo ina kaahin oo argagixisada madaxdeeda ah oo caalamkuna yaqaano anaguna aanu naqaano oo mar walba laascaanood ku eedeeya argagixiso mar walba ku eedeeya shabaab baa jooga oo shaqadiisii isagu uu hayay cid kale ku eedeynay shaqadu isagu hayay shaqadii uu hayay ee argagixisanimo ee lagu yaqaanay ee wasiiradii isaga la soo shaqeeyay ee hore iyo kuwa hadda joogaaba ay waligood argagixisada u shaqeynayeen ee hooyga siinayeen ee Hargeysa ay u deganaayeen ee Burco u deganaayeen ee nin waliba og yahay ee nin waliba garanaya caalamkuna ka warhayo waxba kama qarsoona caalamka inuu maanta dadka laascaanood ee daraawiishta ah ee aan waligood lagu xaman waxa inuu mar walba meediyaha isla soo taaga waa wax nasiib darro ah waa hadal aan maartay aan meel haysan weeyaan waxaan maqlayaa maanta inuu yiri argadii laascaanood baa waxa laga taagay calankii shabaab calanka shabaab Hargeysa ka taagan yahay halka ma taagna argadii laascaanoodna ma hata soo sawirtay ama Hargeysa dhexdeeda ku taala tii laascaanood waa taa aanu taaganahay calankii Soomaaliyeed ku budsan yahay taa aanu taaganahay aanu kala hadlayno weey taa soo sawirtay Hargeysa ku taala burcay ku taala caalamkuna waa og yahay inay burco ku taala taa soo sawirtay aad miidiyaha gelisay ma taayadu waa taa weey taa intaasaan leeyahay waxaan galabta halkaas ugu nimid nin la yiraahdo ina kaahin iyo Muuse Biixi tiimka u shaqeynayay taalada shuhada dhalinyaradii hawshii shalay ka dhacday u bedelay waxa laascaanood ku sugan al-shabaab al-shabaab kuma sugna laascaanood waxa ku sugan kuwii dhagaxayna kaga saaray barqacada waxaan halkan isugu nimid galabta anoo ku hadlay afki booliska ana taliye qaybta gobolka cid alla cidii ee halka ku sugan ee dhulbaanta xafisku waa kooban yahay waqtiguna kooban yahay cidii imaanaysa laamaha booliska soo marin ee aan soo marin nidaamka dooliga ah jamaahiirtu way la taagan tahay ciidanku boolisku way garab taagan yihiin waxaan rabaa soo lalminayo in sha Allah lagu soo tuuro dib damba dhici mayso in shuhaadada waxa way asaanteeda la bedelo in sha Allah taala qofkii dambe ee imaanaya anagu dhulbaanta oran meena imaan imow laakiin nidaamka dawliga SSC waa inaad soo martaa haddaad soo mari weydid ogow waxa ka dambeeya kuwii dhagaxa dalka halka kaga saaray ee dhishiika kaga saaray insha Allah taala waan kuwana garbeena taagan kuwan ugu nimid laascaanood iyaga dhagaxa tuuray oo kuwan iyo kuwa magaalada ku maqan ayagaana anagu garab taagannahay ayagaana waxa way la socodfanahay ayaga la dhimanayna ayaga nooga hor dhintay waxaan halkaan rabnaa inaan u sheegno cidii horgale imaanaysa war horgalo waqti waa kooban yahay